iyadoo saaka dib loo mudeeyay kalfadhiga koowaad ee Golaha Deeganka degmada Burco ay ku dooranayaan duqa degmada Burco iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa dhankooda arintaasi ka hadlay xildhibaanada Axmed Xiis Dharbaan iyo sidoo kale Khalid Xasan Xaaji Diiriye xalina lagu soo wargeliyay xukuumadda ayaa dib u dhigtay oo dib u dhac baa ku yimi sababaha la soo gaarsiiyay loo sameeyay waxay maanta waxa loo fadhiisanayay imtixaanaadkii shahaadiga ee dalkan marka sidaa daraadeed bay lagu wargeliyay in maanta ayay tahay maalintii imtixaanka shahaadiga ardayda Soomaaliland ay u fadhiisanaysay sidaa daraadeedna loo baajiyay kalfadhigii maanta qabsoomi lahaa ee lagu dhaarin lahaa xubnaha Golaha Deeganka laguna dooran lahaa hogaankii shirgudoonka xubnaha Golaha Deeganka maayirkii maayirka ku-xigeenka marka anigu ka dareen ahaan ka xildhibaan ahaan waxaan u arkaa inay wax caadi tahay xukuumaddu waxay noo sheegtay in 31 kamid doorashadu dhacayso way dhacdo waana la doortay natiijadii 4 bisha lagu dhawaaqay 15 bisha waxay noo sheegtay xukuumaddu in nalaansixiyo waana nalaansixiyo maanta waxay noo sheegtay 19 bisha tayn kalfadhigi dib u dhacay waa sidii caadiga ahayd ee maamulka iyo sunniga caadiga ah ee xukuumadda maanta dambana iyada noo sheegayso waan imanayna waanu dhaaranayna waana la istooranayaa marka wax dhib ah ku jira oo aanu arko ma jirto arinta iyada wad maasantii walaal kalfadhigi maanta sidii markii hore qorsho ahaa maanta ballansana laakiin habeenkii xalay ahaa waxa naloo sheegay kalfadhigi inuu dib u dhacay 2 maalmood maanta bari iyo saadabana waa isku mid ka xildhibaan ahaan mas'uuliyad baa saaran maaha dareenka dadka inaanu waxa weeye aanu kor u qaadno dadkayga waa inuu dajino maanta hadii la fadhiisto iyo hadii bari la fadhiisto waa isku mid wax faraq badan uma dhaxeeyaan cidii ilaahay u qoray ayuun baana ku soo bixi doonto hogaanka magaalada muhiimadu maaha waxa weeye iyo magaalada hogaaminaya ama maayirkii waxa in la isku qabqabsado maanta maaha Burco magaalooyinka la midka ah way ka hadhay tartan baanu galay goobihi aanu ka ololaynay halkan aan imka fadhina ayaa kamid ah shacabka magaalada Burco waxay doonayaan cid wax u qabatay doonayaan waxaan halkan ka cadeynayaa xisbiga Kulmiye wax faragelin kuma hayo doorashada Golaha Deeganka ee degmada Burco cid waliba taa way ogtahay labada xisbiga mucaaridka ah si toos ah ay faragelin ugu hayeen way isku sawireen inamada qayb kamid ah golayaasha deegaankuna ma aha golo siyaasadeed ma aha waa gole horumarineed weeye wuxuu quseeyaa shacabka magaalada ku nool iyagoo aan xisbi kala ahayn marka labadii xisbi ee faragelinta ku hayay inay haddana xisbigii Kulmiye ku eedeeyaan oo yiraahdaan faragelin baad ku haysaan magaaladii Burco waxa weeye runtii hadal aan meeshii uu lahaa aan laga oran weeye waxaan kale doonayaa shacabka magaalada Burco inaan u sheego meerku waxa weeye waa gudoomiye wuxuu gudoominayaa xubnaha Golaha Deeganka ee degmada Burco waxa marka hore mudan cid u qalanta waxa weeye programkiisa ama programka xisbiga uu u matalayaa ay sax tahay ee macquulka tahay inuu ku soo baxo waana sida anigu aan rajeynay ilaa iminka marlabaadka golayaasha deegaanka dunida qaar waa ceremonial waxay gudoomiyaan oo kaliya kalfadhiyada ay gudoomiyaan lama siyaasadeeyo waxa weeye wadamada qaar sanad walba xisbi baa loo dhiibaa oo lagu maamuusaa siyaasadda baarlamaanka iyo inta badan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ka socotaa marka xisbiyada mucaaradku waxay xoog iminka soo geynayaan magaalooyinka mad soo faragelisay ilaa iminka ma arko waxaan baan ogahay oo kaliya xukuumaddu inay mudaysay xilliyadii nalaansiixinayay xilligii doorashada xilligii hadii bayd maayo maanta oo ay 19 bisha in la soo yimaado dib baa markaa ay u dhacday sidii xalaytan lagu wargeliyay iyadoo la ixtiraamayo ardayda faraha badan leh sanad dugsiyeedkoodii ka qalin jabinaya doorkan halkan hadda aniga uga faa'iideysanaya ardaydaas waxaan leeyahay ardaydu in badan baa dadaasheen waalidkooduna ay ku soo tabceen mustaqbal wanaagsan baan u rajeynayaa ardayda dugsiyada sare ka baxaya ha ku dadaalina inaad kaalmaha koobaad iyo labaad iyo kaalmaha sare aad xoog saartaan ee waxaad go'aan ka gaadhaan mihnada ama mustaqbalkiina waxaad ku takhasusi doontaan iyo hadaad ganacsato noqon doontaanba taasaa ka muhiimsan inaad kaalmaha hore gashaan marka xukuumadda anigu ma ogi haba yaraatay faragelin ku haysa doorashada Golaha Deeganka ee degmada Burco laakiin waxaan ogay xisbiyada qayb ka mid inay faragelin ku hayaan waxay sheeganay ku sii adkaysanayaan tartanka dhinaca xisbiga Kulmiye ee jagada loolanka doorashada Golaha Deeganka ee degmada Burco anigu wali waan sharaxanahay waana tartamaya
aqlabiyadana sidaan hore u sheegay horena oo u sheegay cidda heli doonta marka golaha fadhiga la yimaado ayaa la arki doonaa waxaan ku rajoonayaa xisbiga Kulmiye inuu ku guuleysanayo maayirka magaalada iyo doorashada kalfadhiga soo socda marka maalinta kalfadhigu soo socda oo dhaco ayaa la arki doonaa ciddii guuleysatay anaguna waxaan rajeynaynaa inaan guuleysano aqlabiyadana haysano macna ma sameynayso sawirro la soo galo iyo magaalada laga baxo iyo sawirro la soo galgalo iyo arrimo propagandooyin suuqa la samaysto si degan oo sharaf leh ayaan u tartamaynaa anagu hadii laga helana waanu haniyeenaynaa laakiin waxaanu aaminsanahay inaanu haysano aqlabiyada golaha waanu guuleysanaa waa tartamaynaa ciidanka Ilaahay Maxamed Mataan Gabalaax Sahan TV